السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta aan qori doonaa programkii nagu horeeyay ee Z Programming Language. kolkaa qof walba videoga ha daawado ha ku ceshado ha sameeyo programyada. kolkaa waxa weeyaan waa programkii nagu horeeyay. haddaba editorkaan isticmaalayna waxa weeyaan waa Dev C++. kolkaa qof walba ha soo dejisto computerkiisa ha ku shubto dibida programyada ha ku rangareeyo. arday walba inuu computerkiisa soo qaato habeen kastoo laabo leenahay dibida programka u rangareeyo. kolkaa programka u horeeyaan qorayna waxa weeyaan hello world. haddaba sidii loo qorayaa qaab noocayaan u save garaynaynaa. waayahay kolkaa waxaan sameynaynaa editorka noocaas kugu soo bixi doonaa markaad wax ku qoraysid. haddaba waxaa la sameynayaa sidaan wax u dhex qorno in kugu xidhan yahay uma dhex qori kartid. kolkaa waxaan sameynaynaa Ctrl+N markaad taagato wuu kuu furmaya. Ctrl+N markaan qornay wuu inoo furmaya. haddaba waxaan qoraynaa koodhkii ugu horeeyay #include stdio.h. haddaba #include calaamadeedu waa ka weyn iyo ka yar. #include waxaan sheegay inay preprocessor tahay laguna aqoonsanayo language-ka la isticmaalayo inay tahay C programming language. kana inuu yahay quotation-ka yare ka yar iyo ka weyn dhexdooda ku jira. ka yar iyo ka weyn mar walba keyboard-kaaga waad ku dhex arki doontaa. waxaan isticmaali doonaa wax bracket loo yaqaano, waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano double quotation. mid walba keyboard-kaaga ugu jira. shift unbaa taabanaysaa keyboard-kaaga kaga raadinaysaa mid walba doonaysid. haddaba stdio.h waxay qabanaysaa waa from the input and output. in keyboard-kaaga waxna laga soo gelin karo waxna la soo daabici karo. ayna kugu taagantay wax loo yaqaano saxale hor sheegnay sheegnay printf iyo scanf ay u taagan yihiin. scanf waxaa u qaabilsanta wixii keyboardka laga soo computerka keyboardka laga soo geliyo iyo wixii mataqaanaa ayay u qaabilsan tahay scanf. halka printf ay u qaabilsan tahay in mataqaanaa display oo kale. marka #include marka qoray halku code executing amba ragga ka bilaabo wax loo yaqaano main markaad tiraadid calaamada yar labada yar ee quotation labada yar ee bracket waa shift+9 waa function waa call halkay waa function call baa loo yaqaanaa waa function baa loo yaqaanaa waa halkay programku uu ka bilaamayay. mainkani waa halkuu programku ka bilaamayay mataqaanaa runkiisu amba executionkiisu uu ka bilaabo. waaye waxaan ku qorayaa printf waxay ku qaabilsan tahay printf waxa weeyaan waa from the display. waxaan ku qorayaa hello world calaamada yar quotation-ka ee bracket-ka yar baad furaysaa waa shift+9 quotation-ka yar waxaa ku dhex qoran wax loo yaqaano waa message kaliya. hata wixii halkaa inoogu qoran baa lasoo daabacaya. terminator-ka semicolon waxa weeye waa terminator waa joojis. kolkaa waxa weeyaan mainku waa halka function-ku ka bilaabmay shaqada ay ka bilaabmayso waa bracket-ka to bracket-ka dhexdooda waxa ku jira ayaa mataqaanaa la soo rangarinaya. #include waxa waa #include-ka u sarreeya #include-ka yar waa calaamad yar waxaad ku heli kartaa shift+3 oo kale way ku jirtaa si keyboard-adu kala duwan yihiin. waa preprocessor halka input and output ay u qaabilsan tahay stdio.h. input and output halkan maxaan ka heli karnaa input and output ma heli karnaa haa waxa weeye output-ku waa printf waxay kusoo daabacaysaa wixii quotation-ka to quotation-ka dhexdeeda lagu qoro. calaamada yar ee double quotation waxaa lagu heli karaa shift+quotation-ka yarde intaas waxaa loo yaqaano waa message waa inta lagu soo daabacay. halka calaamada yar joogsiga loo yaqaano semicolon-ka loo yaqaano ay tahay terminator. haddaba inaan save garayaan doonaya. haddaba koodhka shaqada halkay ka bilaabaysa waa intaa bis. halkaan bal inay C programta la aqoonsaday inay gurada keyboardka lagana soo gelin karo lana daabici kara la aqoonsaday. shaqadii halkaan laga qabanaya daba markaaba executing miigu ka dhacay waa bracket-ka to another bracket-ka dhexdeeda waa shift+bracket shift unbaad la qabanaysaa mid walba. quotation-ka waa shift maxay quotation mataqaan double bracket-ka waa shift+9 shift+3 waxaas oo dhan weyn keyboard-kaaga shift un qabo ku raadi mid walba. waaye haddaba aan rangarayna koodhka waxa weeyaan file baan tegayaa save as baan tegayaa
waa inaad desktopkaaga aad ku samaysataa waxa loo yaqaano mataqaana folder ani folderka muu ka samaysay C programming code ku qoran waayahay maxaan ku qorayaa hello.c waa extensionka loo isticmaalo C programka haddaad save tira u qaadanaya laakiin c.cpp ga halkaa ku yaala buu qaadanaya oo C++ ka loogu talagalay source code-kan ama source code-kan waxaa lagu save garayaa .c oo kale waxaan leeyahay save haddaba calaamadda rankaan tegayaa maxaa ii soo bixi doona waxa ku soo bixi doona wixii printf ka ku jira ee bracketka quotation to another quotation wax kale kuma soo baxayo wixii halkaa ku jira baa ku soo baxaya quotation to another quotation kaas run baan odhanayaa maxaa ii soo baxay hello world intii aan ku qoray that is why ayaa printf loo yiri waxa weeyaan waa display waxay ku soo daabacaysaa wixii lagu dhex qoro halka scanf on arki doona ay ku qabanayso wixii keyboardka guriga laga gelinayo salaam sidii xalay hore u sheegnay in seedka xalay oo kale nagu tusay ayaan mataqaanay ayay la mid tahay kolka waxa weeyaan halkaas ma joojinayna casharkeena koobaad waxaan ka warrabinay first program oo loo yaqaano hello world dad baa intii halka miinka hore raaciyo dhib male halkan forward ku qora nooca flash kamid ah oo forwardkaasi haddaad qortay haddii kale waa caadi laakiin ugu miinkaasaan soo ardaygu ugu fahmo miinkaas waa halka shaqada ku bilaabaysay bracketka to another bracketka intana waa intii lagu dhex qoro waa statementkaas wuxuu ku soo daabacay printf wixii lagu dhex qoro waa display halkaasaan ku joojinaynaa first program waa aniga macallinkii C programka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته